حلقتنا waxaan ka hadli doonaa mowduuc aad u fudud isla markaana aad muhiim u ah waxaana waaye the articles laakiin intaan casharka bilaawin waxaa kasoo horeeya intro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada xalqadan maanta ee English tutorial. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc aad u fudud isla markaana waxaa waaye mowduuc very important ah waa mowduuc aad muhiim ah waxaana waaye the articles intii kaga muuqato. Marka casharkan waxaan ku bilaabeynaa anagoo fiirinayna sabuurada si noogu kala baxaan articlesiga iyo maxay yihiin. Okay, so articles waxay kala baxaan saddex article ayaa jira. Marka article koowaad waxaa waaye a, mid kale waxaa waaye an, kan saddexaad oo dambeeya waxaa waaye the, a, an iyo the. Okay, saddex article ayaa haysanaa. Saddex article maxaa loo kala isticmaalaa maxayna ku kala duwan yihiin. Okay, number 1 iyo 2 way isku egyihiin xoogaha wax yar kaliya ay kala duwan yihiin aan hadhow ka hadli doono. Maxay iska egyihiin? Waxaa lagu talagalay marka laga hadlayo an specific noun waxaa waaye magacyeel oo aanan la garanayn. For example, haddaa dhaho anoo isticmaalay a marker waxaa waaye qalin. Wuxuu noqon karaa a marker, kan wuu noqon karaa qalin, ama kanuu noqon karaa ama kanuu noqon karaa. Marka ma kala garanayno waxaa waaye an specific mid aan la garanayn waaye. Okay, marka a iyo an waxaa lagu talagalay mid aanan la garanayn. Qalimaan badan ayaa jiraan, malaayiin qof walba qalin haystaa. So pen hadda dhaho qalin ama marker, qalinka noocaan sabuurada loo isticmaalo marker marka way badan yihiin waxaa lagu talagalay mid aanan la garanayn, an specific ah. Okay, midda labaad waxaa lagu talagalay inuu ahaado singular waxaa waaye hal keliya. Okay, markers ma dhihi karo, waxaa lagu talagalay hal keliya, jamciga looma talagelin. So for example waxaa dhihi karaa a marker ama waxaa dhihi karaa a t-shirt, a person qof, ama a whiteboard sabuurad. Okay, so a iyo an waxay iskaga egyihiin labadan wax. Number 1 waxaa lagu talagalay an specific noun waxaa waaye magacyaal aanan la garanayn, ma aha mid oo ah maxadad, mid la garanayn ma aha. Okay, midda labaad waxaa waaye singular, markasta waxaa lagu talagalay wax oo singular oo hal wax kaliya. Midda saddexaad waxaa waaye the waxaa lagu talagalay specific nouns marka uu ka duwan yahay a iyo an waxaa lagu talagalay kuwan an specific nouns waxaa magacyaal aan la garanayn, kan waxaa lagu talagalay specific noun waxaa magacyaal oo la garanayo. So haddaa dhaho for example the student waxaa waaye ardayga, waa arday la garanayo ardayga haddaa dhaho laakiin student waxay noqonaysaa ardayga waaye. laakiin haddaa dhaho the student ardaygii waa arday aan isla garanayn aniga iyo adiga. Okay, marka waxaa lagu talagalay specific nouns waxaa waaye magacyaal oo la garanayo. haddaa dhaho the marker marka qalin ayaan ka hadlayaa, hal mid aan isla garanayn aniga iyo adiga. Okay, midda labaad waxaa lagu talagalay singular iyo plural nouns. Okay, wuxuu soo raaci karaa singularka, sidoo kale wuxuu soo raaci karaa pluralka. Marka waxaa dhihi karaa the marker qalinkii ama the markers qalimaantii. waxaa lagu talagalay ama singular iyo plural labada uu soo raaci karaa. Okay, so waxaa haysanaa a, an iyo the. saddexda waxaa waaye articlesiga waxaa lagu talagalay a iyo an specific nouns magacyaal oo san la garanayn. haddaa dhaho a house guri, waxaa jiraan malaayiin oo guriyaal, mid ku yaha ma garanayo. laakiin haddaa dhaho the house waxaa waaye gurigii, waa mid aan isla garanayn. Okay, midda labaad singular aa lagu talagalay a iyo an hal wax keliya, ka badan looma isticmaali karo. the laakiin waxaa la isticmaali karaa singular iyo sidoo kale plural. casharkan maanta intaas ku ekaa, waxaa rajeynaya inaad fahamteen. waxaana ballanaa xalqada soo socota. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.